الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaal waa idin salaamay. maanta waxaan u soo istaagay halkan hortiina ah inaan dalka iyo xaaladiisa aan idin la socodsiiyo. walaalayaal Soomaaliya qofna kuma seegana taariikhdeedii dhaweyd iyo wadadii aan soo marnay ee duruufaha kala duwan marba heer leh ahaa. dalkani dagaal sokeeye lagu kala miirmay lagu kala baxay oo soo maray dawlad ku meel gaar oo soo maray dawlad ku meel gaarnimadii ka baxday oo soo maray dagaal kala duwan oo noocyo ah oo soo maray shabaaba ugu dambeeyay ayaa dalka maanta jooga 15 sano ayay dalka joogaan. dadka Soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin. cabsi gelin tahdiid ceebayn يعني dadka karaama dilid ay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ay ku joogeen. maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato, inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ay u istaagtay. dadka Soomaaliyeed dhiigooda ay bixiyaan maadaama dhiigu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin. shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujiyaan oo dadka boqol u dilaan abriya waxba galabsanin suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiiranaan kuma dhama inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay inta soo daba mariyayaan ayay jidka miina geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku raacay ceelasha maxaan ku raacay dumi oo siib meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabada ka sii sibteen. saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka huleelan kuma ayan dagaalamin حتى عيالشي بيو كويل أي منبدي كسيبتين dadkina inta afduubteen ay ka xayeenayeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganay dadka oo leh dadka haduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqay karo lidama waxayn karo ayagoo leh. nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo Sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn. baabuurta shacabka jidka marayso safarka oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. maalin walbana sidaas ay yeeli doonaan meelaha kale oo laga sii eriyay kuwii hore laga soo eriyayna sidaas ay yeelaan oo aan midaal soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sidii yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaan sidaas ay yeelayaan. qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dib baa loo kicinaya. qabaa'ilaa isdiriray ciidamada amniga waa kala celiyeen ceelalaha la gubay ceelashii dib u heshiisiin gobol waa waxeen waa hawsha dawladdu ay ku jirto. waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo uga mahad celiyo dawladda Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Galmudug oo madaxdooda iyo mas'uuliyintooda runtii u istaagay frontiga taagan oo ka soo laaban meena qarxaysa iyo xagga tigir aan hayna horay taagan meelaha ugu horeey frontiga ugu horeey maalin walba taagan daba taagan muxuu ahaa ciidanka. sidoo kale waxaan amaan iyo bogaadin u jeedinayaa Koonfur Galbeed dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawlad goboleedka Jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen dadkoodana abaabulay ciidamadoodana abaabulay kaashanayana muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. oo meelaha qaarkood roobaba ka da'ay dhulku waa dhul carro madow ah oo dhiiqa aan la mari karin waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameeyeen lahayn ay ka sameeyeen way jiraan. laakiin labadaas dawlad goboleedna waa meelana waa ka raacdeen shabaabkii inta kalena waa u diyaar gareysay waa ku soo socdaan. usbuucyada soo socda ilaa idinkiis ayadana warar aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed idinka soo gaari doono
labadaas dowlad goboleed. labadan dowlad goboleedna waa gabagabo, waxa ku haraahay waa wax yar. galmudugna wax yaraa ka dhiman, hirshabeellena tuulooyinha ka dhiman. degmo hirshabeelle ka tirsan ee saakay ciidanka xoogga dalka soo aanu gaarin, ruunargoodha ka jirto, ayadana waa saacado, ilaahay idankiis waa la gaaraya. dowlad goboleedka galmudug degmooyinaa weli maqan, waa lagu sii socdaa ayagana. waxaan rabaa marka dadka soomaaliyed inuu sheego nimankaasi waa naga gudbeen, waa tageen, inaan taxadar badan muujinaan. laba waxyaabood oon maanta dadka soomaaliyeed ka codsanay waxay tahay, midna in ay adkaystaan muddada gaaban, xanuunka gaaban, qaraxay xagga dhigaan, xaggay muxuu ahay jidkay miino u galeen, baabuur qaraxay meel hebel joojiyeen. waxa waaye ruux baxoodii waaye inay dul qaataan u adkaystaan. nimankan waa dhammaadeen, waa magaciisi. midda labaad, dadka soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inuu sheego. dadka soomaaliyeed, shabaabku waa Soomaali, shabaab kalkaalku waa Soomaali, waana dad la garanayo, sifooyin gaarana leh. laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meel qaarkood ka jiri karo, dadka qaarkii ogaan la-aan inay shabaab ugu shaqeeyaan. ogaan la-aan ayagoo shabaabka necab ama dadkooda uu dilay ama ayaga uu muxuu khatar ku yahay oo cararaya, haddana inay ogaan la-aan waxyaaba shabaabka taageeraya ay ugu shaqeeyaan. dad sharaf loo karaamo leh, sawiradooda iyo hadaladooda inta soo qaataan inay websaydyadooda soo geliyaan ayagoo ku faanayo. dadka soomaaliyeed oo walaalayaal, ogaan la-aan yaana shabaab ugu adeegin. haddaan nahay siyaasiyiin, haddaan nahay ganacsato, haddaan nahay shacbi caadi ah. waan ogahay dad soomaaliyeed oo tiro badan oo shabaab jecel ama raalli ka ami jiro, laakiin anagoon ogeyn oo wax kale ka hadlayno, wax kale ka jawaabayno, qof walaaloo kale oo soomaali oon ku xanaaqsannahay u jawaabayno, ka waxaynayn, yaanan shabaab u adeegin. kelmad kasta oo dadka soomaaliyeed qaybinaysa, kelmad kasta oo qaybo dadka ka mida qaybinaysa, kelmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah, kelmad kasta oo cajas gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan, ogaan la-aanaad shabaab ugu shaqeeyo haysaa. ogaa walaalkeyo, walaasheeyo, yaan loo shaqeyna shabaab, ogaan la-aan yaan loogu shaqeyna. kii ogaan ugu shaqeyn waaba garanaynaa, waa kii shabaab kalkaalka ahay oon sifaayooyinkiisa in badan aan kasoo sheekeyna waay. waa qaadicu dariiqa, waa kan dadka isku dira, waa kan qabaabilka abaabulo isdila yiraa waay. laakiin soomaaliga muwaadinka ee sharafta leh, ee ganacsadaha ah, ee bulshada rayidka ah, ee siyaasiga ah, ee mas-uulka meelaha qaarkood ka ah, waayo kan la hadlayo leeyahay hala taxadaro, ogaan la-aan yaan shabaab loogu shaqeyna. waxaan guud ahaan ammaanayaa hay-adaha dowladda dhammaan, hadday yihiin sharci dejin, hadday yihiin fulin, hadday yihiin maxaan ku rahdaa garsoor, intaba maanta u taagan muxuu ahay dagaalka shabaab. waa ku ammaanayaa dhiiranaanta iyo codka ay banaanka ula taagan yihiin. laakiin walaalayaal, soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto. xaalad ay isxoreynayso oo gobonimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa. xaaladaasi waxbay naga mudan tahay. waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jirno, dadka soomaaliyeed, walaalaha soomaaliyeed meelkasta waxay ugu baaqayaan inay taageeraan, banaanka usoo istaagaan. hiilo qarsoon hiilo maaha, horeyaa loo yiri, soomaalida kuma maaday. banaanka la soo istaag, maalintaa dhimanay ka hor dhiman maysid haddii aan la yiraa. waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta in halkan uu sheego, walaalayaal, shabaab waa taariikh, waa history, waa tegey. taariikh waaye, waa tegey. haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo way soo noqonayaan. beri deegaanka soo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii, yaan saan la yeelin, yaan kaas la yeelin, beri imaanayaan, soo noqon maayaan, ma soo noqonayaan, waa tageen ilaahay idankiisa. cajasgelin waaye markaa, ma soo noqonayaan, waa soo noqonayaan iyo cabsigelin iyo cajasgelin waaye. dadka dhahay degaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa cajasgelin waay. dadka soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah ayay dagaalka ugu istaageen.
dadkayna qalbigooda iyo niyadooda aan toosino aan sii qurxino shabaab waysa maanta marka dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay maxaan ku raadayay qaybaha kala duwan dawladda hadday tahay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ayadana dhammaan waxaan leeyahay maanta aan laba waxyaabood ka fikirno oo isku meel ku soo dhamaanaya midda koowaad aan ka fikirno shabaab waa dhamaaday waa tagay waa taariikh dalkan saan yeelina shabaab ka bacdi maxaan sameynayna shabaab dabadii maxaan sameynayna dib u heshiisiin maamul dhisid sharci dejin hagaajin horumarin maxaan ku raadayay stabilization ama deganaanshihi deegaanada shabaab ka tagay maalin dhawadna waa ka hadlay deegaanada shabaab uu ka tagay deegaana tagay iskuul ma leh bar caafimaad ma leh ceel biyaa ma leh dugsi qur'aanka xataa ma leh qur'aan si qaloocan caqiida qaloocan dadka baraysa inta la yiraahdo dugsiyada dhan xataa dadka laga xiray iska daa wax kale intaasoo dhammaan inaan soo kabno na sugayo meel kasta oo qoysas Soomaaliyeed ku nool yihiin iskuul inuu helaan caruurtooda wax bartaan dugsi quraankooda inuu shaqeeyo oo macallinkooda iyo nidaamkooda la hagaajiyo bar caafimaad ugu yaraan caruurta laga talaalo yaryarka ah oo maxaan ku yiraahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan oo aan baabuur jid raf lagu soo qaadin gabar foolanaysa dawladda mas'uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirno ay tahay taas waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa had diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oo ugu diyaar garownay shabaab kadib sida u dhisanayn dalkan aan u diyaar garownay shabaab waa tagay waxaan sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeennii oo 15 sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyay inay waxay waayeen xuquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waayo mid dad taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaar garowga la sheegay taas aan u galno hadda dad walba Soomaaliyeed inta isku tagaan deegaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahay iskuul ugu sameyn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan dawladuna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagantaa ka gaabin mayno muxuu ahay ilaahay idinkiisa laakiin waxaan dadka Soomaaliyeed fikirkooda gidaan u baahanahay waa midaas qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sidii aan isaga looga cafin lahaa gudid ma ahaanayna looga cafin lahaa ayaan geed dheer iyo geed gaaban u taagno taramkii hore aniga madaxweynaha ay ka soo bilaabo taramkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo joogo ku xiji hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda ku sii xiji intaasoo dhan dagaalo isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummaddan looga cafi lahay deynka ma aha kaliya caqabado albaabo badana naga xiran oo aan maxaan ku irahday horumarinta iyo dib u dhiska dalkan aan u kaashanayn deynka marka in aan laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u bood deyn cafintiina way soo dhamaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taalo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin waan rajaynaynaa baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugaan deegaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan sameynaa oo aan uga hadlayo waxaan sameynaa deyn cafinta dabadeed maxaan sameynaana waa su'aal kaloo taagan 5 bilyan oo dollar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan hadda nalaga cafiyey inta dhimanna bilahaas aan sheegaya gudahood nalaga wada cafin doono Soomaaliya wixii hadda ka horreeyay awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshadeedaas hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn Soomaaliya fursadii awood uma lahayn deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii fursadaas maanta ma furmayso waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kasta ay joogaan iyo hay'adahooda
xukuumaddu ay ugu horeyso already shaqadaana haysa hadda oon aad iyo aad ugu ammaanayo shaqada deyn cafinta meesha ay doorka ay xukuumaddu ka qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhammaan aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshiina uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi ka soo dhammaadaan si waqtigu noogu soo degdego waqti badan ma haysano marka waxa aan laga fikraa anu lahay maxay tahay 5 bilyan aan la tacaalayna 10 sano ka badan in laga cafiyo deynaan qaadan doonaa ilaa dalka inaan dhisnaan u baahana awoodeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunyada dhammaan ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ah waxaan lagu qabsada la iska gudo 5 bilyan ka qeynay 100 bilyan oo doolaraan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaaraad maan u kala qaadanaynaa daara dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakhli ka imaanayo oo aan deynka iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeegyo ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan inay isbitaallo waaweyn oo referal hospitals ay helaan jaamacado dowladeed oo aad iyo aad u camiran oo dadku lacag la-aan ku dhigtaan inay helaan waxbarasho waafi ah oo macalinkeeda iyo shaqaalaheedu ay qanacsan yihiin inay helaan waxaasoo dhan waxaa u asala dhaqaale deynka aan qaadanayno kow muhiimadda waxaan ku saynaynaa dib u soo kabashada dhaqaalaha inaan dib ugu soo celino si aan tacliintii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii cashuur dowladeed oo ku filan aan u helno dadka soomaaliyeedna nolol fiican ay u helaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha bulshada rayidka iyo deegaanada dhammaan waxaan rabaa inay haystaan wixii oo loo maalgeli lahaa ganacsatada si gaara weliba mashaariic waaweyn oo la maalgeliya inay la yimaadaan dowlad goboleedyada iyo deegaanada sidoo kale marka waa arin ayadana inaan kasii fikirno oon u diyaar garowno u baahan way soo socotaa waana soo dhowdahay weliba waxaan rabaa hadalkeyga inaan kusoo guraado soomaaliya ilaahay idankiisa waa gaari karnaa soomaaliya barwaaqa ah ilaahay wuuna siiyey wixii aan ku barwaaqoobi lahayn oo dhan ilaahay wuuna siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad hadday tahay barwaaqo iyo macaalin dhulka hoostiisa ku jirta caqligii deganaanshihii heshiiskii iskaashigii aan ku gaari lahayna nalaga rabaa walaalayaa 32 sano muddo dheer waay 32 sanaan kusoo jirnay buuq iyo qaylo iyo looma dhamma iyo waa diidnay iyo waa yeelnay nooma noqoto dadka soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto looma dhamma iyo waa diidnay iyo nooma noqoto horey aan u soconno maanta waxaad weysa beriyaad helaysaa adduunyadaadu beri ha lahaato maanta yay ku ekaano maanta wax waaye bis waa dhammaata ma aha maanta haddaad waysa beriyaad helaysaa maanta haddaad haysato mas-uuliyad dowladeed iyo magac dowladeed beri ma haysanaysid maanta haddaadan haysanina macnaheedu maaha beri inaadan helayn fogaan arag aan yeelano beriyaa soo socoto ilaahay idankiis waana beri qurxoon aad iyo aad u qurxoon dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaa 2 arrimood kale walaalayaal wax kasta oon shaqa oon dalka ka hayno sidii aan u suubi jirnay intaan fiirino qiimayno si ka duwan aan suubino haddii sidii aan u suubi jirno u samayno wixii aan heli jirna aan helaynaa wixii aan heli jirnana ma anfacayso 32 sano ka bacdi waa waxaan meesha u joogno wardadow dulqaad war maanta waxaad rabtaa haddaad weyda adduunyada inay dhammaatay maaha beriyaad helay beri fiicana soo socoto ilaahay idankiisa aan isbedel keenno isbedelku waa xanuun badan yahay waa qiimi badan yahay laakiin waa inaan hurnaa haddii kale meeshaanan joogaynaa waa qabaan leenahay kulligeen
qof qabaan u leenahay laakiin qaran ahaan aan qab u yeelano qaran ahaan aan qab u yeelano adduunyada aan la tartamo tartanka dhexdeena oo degmo la tartamo qabiil la tartamo intaan joojino dunida aan la tartano waa nalaga tagay nalagamana tegi karo sababna looga tagay ma jirto taasi waa midaas waxaa kaloo dadka Soomaaliya u sheegay fogaan arag inaan yeelano Soomaaliya 1960kii ayay xorriyad qaadatay dowlad noqotay 62 sano ka soo wareegtay waxaan u baahnaa markaan dowladnimada sidaan ugu fikiri jirnay si ka duwan inaan ugu fikirno walaalayaal 2060 haddii la gaaro ilaahay idinkiis waa la gaarayaa Soomaaliya 100 sano ayay xor tahay dowlad tahay maanta dadkeena jooga mas-uuliyadana saaran oo aanan ka gagabakar waxay tahay inaan ka fikirno oo maskaxdeena ku dejino Soomaaliya see ah noocee ah ayaan rabnaa 2060 in la gaaro in la arko Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 38 sano ka bacdi in la arko waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku fikiraan Soomaaliyadaas naqshadeeda inta la sameeyo maanta dhismaheeda in la bilaabo